Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow daawade xalqadeenii labaad ee sheekadii dhimashadii caddeed. Xalqadii hore waxay inoo joogtay markii ninkii soo kala dhex galay una sheegay inay keliya fadhiistaan. Xalqadan waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Marwa Haaland, waad la hadli kartaa keliya. Fadlan fadhiiso miiska. Halkan waxaan u taaganahay in aan idin daawado. Hooyadii iyo gabadhii way fadhiisteen miiska korkiisa. Ana waxay u dhoweyd gacmaha gabadheeda Sahra miiska dushiisa. Waxay si taxaddar leh u fiirinaysay gabadheeda wejigeeda. Wejigeedu wuxuu ahaa iyo dharkeeda mid wasakhaysan. Waxayna u muuqatay mid daalan, mana faraxsanayn. Ana ayaa ku fikirtay, Sahra, maxaa dhacay ayay ku dhahday. Waxaynu haysanaa 10 daqiiqo aynu ku wada hadli karno. Ma badna, ii sheeg fadlan, dhaqso. Waxaan doonayaa in aan ku caawiyo. Sahra waxay fiirisay hooyadeed. Allo hooyo, waan ku faraxsanahay inaad halkan joogtid. Waxaan doonayaa in aan kuu imaado. Hooyo, ma samaynin taasi run maahano. Fadlan ii aamin. Dabcan waan ku aaminsanahay ayay ku dhahday hooyadeed Sahra. Laakiin ii sheeg wax ku saabsan maxaa dhacay. Dhaqso, bilowga ka soo bilow. Haa, laakiin ma ogi meesha ay ka soo bilaabatay. Ma ogi, mana fahansani. Maxay booliiska kuu xireen? Goormay ku soo xireen xabsigan? Isbuuc la soo dhaafay aan u malaynayaa. Haa, isbuucii la soo dhaafay. Eelaboorka markaynu imaanay booliiska ayaana istaajiyay. Wuxuuna fiiriyay boorsooyinkeena. Kadib Sahra waxay madaxa saartay miiska. Wayna oyday. Ana ku fikirtay. Waxay ahayd mid aad aan u faraxsanayn. Maxaa dhacay, Sahra? Hooyadeed ayaa weydiisay. Waxay dhahday, waxaa ku jira daroogo boorsooyinkeena. Kadib waxay ii geeyeen qol. Waxayna ii sheegeen in ay dharkayga baarayaan igana bixinayaan. Waxay iga raadiyeen daroogooyin badan, balse wax ma aysan helin. Kadib halkan ayay i keeneen. Waan arkaa. Halkay taalay daroogada? Halkay ka heleen? Alla ma ii sheegin. Sahro waxay joojisay ooyintii. Kor ayay u soo fiirisay. Wayna dhoola caddaysay. Laakiin ma noqonin dhoola caddayn farxad leh. Daroogadii waxay ku jirtay tubada daawada cadayga. Tubada daawada cadayga waxaa ku jiray daroogada heroin. Mana ogi wax ku saabsan iyada. Maya hooyo. Dabcan maya. Mana ogid wax ku saabsan iyada. Maya hooyo. Dabcan maya. Ma u malaynaysaa inaan ku cadaysto heroin? Ana way dhoola caddaysay. Aad ayay u adkayd in ay dhoola caddayso. Sababtoo ah waxaa xirnayd gabadheeda. Laakiin way dhoola caddaysay. Sababtoo ah waxay doonaysay inay caawiso gabadheeda. Waan ogahay in aad ilkahaada ku cadayn heroin. Waxaad leedahay ilka cadcad oo fiican, Sahro. Laakiin ka waran Stephen? Wax muu ka ogyahay herointa? Asiga maa ku shubay herointa tiyuubka daawada cadayga? Stephen? Maya. Maxaad iga weydiinaysaa wax ku saabsan Stephen hooyo? Hagaag. Asigana xabsiga muu ku jiraa sidoo kale? Waxaa dhahday boorsooyinkeena. Booliiska ma xiray sidoo kale? Alla maya. Wejiga Sahra wuxuu ahaa mid aan faraxsanayn. Maya, Stephen mala jirin hooyo. Waad aragtaa, Stephen iyo aniga hagaag ma nihin saaxiibo hadda. Waxaan ka tagay qiyaastii 2 bilood ka hor. Kadib waxaan la kulmay Xasan. Xasan? Haa hooyo. Waxaan la joogay Xasan eelaboorka. Stephen xitaa diyaaradda ayuu nala saarnaa, balse ma ogi sababta. Laakiin ma ogi sababta ma ila joogin aniga. Xasan ayaa la joogay. Xasan ayaa hadda ii muhiim ah. Maahan Stephen. Ana waxay fiirisay gabadheeda. Waan arkaa. Booliiskii xitaa Xasan ma soo xiray.
Sidoo kale, xabsiga muu ku jiraa? ayay weydiisay gabadheeda. Haa, way soo xireen. Ma aanan arkin. Waan weydiiyey, waxaan doonayay in aan arko, laakiin waxay dhaheen maya. Hooyo, waan hubaa Xasan wax kama oga wax ku saabsan heroin-ta. Waa nin wanaagsan, wax kama ogo. Waa hubaa. Kadib maxaa galshay heroin-ta boorsadaada, Sahro? Ma ogi hooyo, ma ogi. Ninkii wuxuu fiirshay saacaddii qolka. Waan ka xumahay Marwa Haalaan, ayuu ku dhahay. Laakiin taasi waa 10 daqiiqo. Waa waqtigii aad bixi lahayd. Ana Haalaan way istaagtay si degan. Hooyo ayay dhahday, laakiin cabsani Sahra. Waxaan imaanayaa maxkamadda beritoole. Haa hooyo, Sahra ayaa dhahday. Waad mahadsan tahay. Booliiska ayaa keeni doona Xasan maxkamadda beritoole. Sidoo kale aan u malaynayaa kaas ayaad ku arki doontaa Xasan. Sidoo kale hooyo, waa nin wanaagsan. Waa hubaa ma ogu wax ku saabsan heroin-ta. Laga yaabee, Ana ayaa dhahday. Waxay u lugaysay si degan albaabka. Kadib waxay istaagtay albaabka iyadoo fiirinaysa gabadheeda mar labaad. Sahra, waxaad ii sheegtay run miyaysan ahayn? Sahro waxay bilowday ooyin mar labaad. Haa hooyo, dabcan aniga had iyo jeer runta ayaan kuu sheegi jiray. Waan ogahay. Ana way dhoola caddaysay. Waan ku aaminsanahay. Waxay ka baxday iridii. Ninkii wuu ka daba baxay. Sahro waxay u fadhiisatay si degan miiskii dushiisa, waxayna fiirisay gacmaheeda. Haa, ayay ku fikirtay. Waxaan kuu sheegi jiray runta hooyo. Aniga had iyo jeer runta ayaan kuu sheegi jiray. Laakiin ma kuu sheegin wax kasta. Waxay madaxeeda saartay gacmaheeda. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xalqadeennii maanta. Inta aynu ku kulmi doonno xalqa midaan la mid ah, waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa i nabadgeliyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.